سؤال وديه ولي isaga qiraal ah waxyaabo waxa jira sideedaba detail ah oo qofku sideedaba uusan iska been abuuran karin wali wuxuu yiri waxaan jaajuusay ama basaasay 6 qof oo Kenyaana oo wadanka dadka xamaasha aha dadku waa noocyadooda kala duwan yihiin dadka masaakiin oo xamaalata ah hadday rabaan gaalaba ha noqdaan inta islaamku ma ogolo in la dilo laba wuxuu sheegay inuu nimanka basaasay in muddo basaasayay muddana uu ku daba joogay si nimankaas loo dilo markaan weydiinay wuxuu yiri dadka Soomaalida ah bay risqigoodii qaateen taasina inuu aqeed xumo kale oo risqiga Ilaahay baa bixiyo subhanahu wa ta'ala waxa intaas si dheer wuxuu yiri dadka Soomaalida ah bay risqigoodii qaateen soo islaam ictiraafsanin dad ka Soomaalida ah malaayiin kamid ah inay Kenya ku nool yihiin iyagoo muslimiin oo salaadooda tukanayo ka ganacsado soo sax ma aqliga caadiga wuxuu keenayay xagga iyo xagga hadii lagu wada nool yahay nabad loogu wada noolaado sida caadiga wixii ciidana waa gaar cidii wax kala aaminsanayada u taala laakiin markii shacabka laga hadlayo wuxuu qirtay in dadka shacabka la laayay dadkaasi dadka Soomaaliyeed bay marti u ahaayeen way aamineen inay ku dhaxnoolaadaan ka dhaxmaashaan bay rabeen ma waxa leedahay xaq bay u lahayn la laayay maya soo shaqada qabo qof kasto diintu tan halaha haduu salid ku wahan xaq buu leeyahay ku noolaad laakiin mid aan anigu ku dooday waxa wali gacantiisa kuma geysan wali waxa eedisu waa gacan siin ma aha say gacantiisa kuma geysan waxa sharciyan markii laga hadlayo waxa aan kala duwanayn qofka basaasay iyo kan dilay isku xukum ay qabaan waxa la yiraahdaa al-mubashir wa-tali' wa-radd ومعناه هذا تاعي نيكا فالك فوليي يا كيس هو بساسي يا كان لبدا بالدفاع او سيئه لبدا سو الدفاع سيئه ومعنى هذا تاعي كان فولينا يبو دفاعيه اذا ولي ومركه كوباده انت با اسغا قرال وا انت waxa si dheer ninkii dadka ba ugu khatarsanaa muumin dheer la dhihi jiray wadanka kharibay ayuu ninkan lacagaha u sarifi jiray u fududeyn jiray muumin dheer waa naqaan dhibka umada u geystay inta aso qof muslim aba qaba ninka lacagaha siinayay u sarifayay u fududeynayay ee garabka iyo gaashaanka u ahaa ayuu wali ahaa taas iyada dambi uma artimiya madawdoodiye waxaan rabaa horta in baahasa in la kala saaro sidoo sharciga qabo ninka qofka gacantiisa wax ku geysta iyo qofka gacan siiya ee fududeeya go'aan la uu kala sheegay دي أتا أسكري كان نكان دل عنده هو السجد إنه تيجي هاولي ويجي تيجي كان هذا تودي السجد أنا كأنا بس لكن أنا دور جيد راح أقول سنة ما هذا سنة هيك ولا هو سنة هذا سافو سنة كور مرور شرعي هيك أنا لو أقوم لكن مرور ولي وحكومة شراء كعنسين ولي ما أخذ عن كذي لا وقت كسنة يمدا محمد خضر afmadow meela teel abu bambara ka soo qaaday ama gacmeeda waa loo soo tababaray soo isagu noo sheegay in hebel la yiraahdo tababaray wiil baabur hebel baan soo raacay bambada magaalada afmadow dhaxdeedan ku aastay ama meel baan dhigtay waan ka soo qaatay hadana kabahan soo gashaday kabaha hoosta soo gashay macnaha hadana say kabay soo galayaan ma garanayeen afmadow dowli baan la imid dowli baan hadana meel dhigtay anoo gaadaya inaan dad ku dilo inaan qof ku dilaan gaadaya jaaniskii ugu sahlanaan helay waxay noqotay gudoomiyaha degmada isaga oo salaada ka soo baxay waa xilliga waxa la yiraahdaa ay dadku ugu badan yihiin oo dadku ay mashquulka yihiin marka salaada laga soo baxo iyo ama waa soo booqan dad baa u iman ama dad baa ka sii bixi oo salaada sii aad ama jaaniskaas aan gaaday buu dambadina hoostaan u galiyay si gudoomiyaha iyo waxa la joogaa meesha ugu halaagsamaan حق إلهي بدبالة كتير منه يعني مينو تلابت تاني كلا يجاه محمد خضر ماشي عدده كلها يسوق ما تلقني محمد خضر معناها محاربة إن النتيجة أنا كعبارة محمد خضر واحد وسميه محاحد أدي أنا ممكن بلاد ما حبت أن أفت 8 أو 10 أو 10 يعني أساسها والله 8 أنا أقول 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 8 أنا أق
maxamed qadar macnaha waa falka uu sameeyey natiijada ka dhalatay khasaare kama dhalan marka maadaama in khasaare in ka dhalan lama dhihi karo waxbuu dilay lama dhihi maxkamadda maxaa ka codsanaysaa weliyo maxkamadda waxaan ka codsanahayaa maadaama wixii falkii aan marka anigu dembiga aan geystay aan qiilaal u ahay oonan dafirsanayn odayna aanay xanuunana aan qabo inay cafisaan ka codsanaya maadaama dembigaygu qoraal yahay aan inkirsanan inay maxkamadda ii fuusaan ka codsanayaan